xijaabka uu faray xijaabka la faray waxa loo faray li'annahu ciffa dhowrsoonaan baa ku jirta rabbi subxaanahu wa tacaala markuu sheegay nebiga sal alla alay wasalam uu ku yidhi waxaad amartaa gabdhaha mu'minaadka ah inay xijaabtaan oo jilbaabka isku sii daayaan wuxuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn inay xijaabtaan ayaa waxay u dhowdahay in la aqoonsado oo lagu aqoonsado inay gabdhahaas yihiin gabdhihii dhowrsoonaa xumaan aan lala damcin wax dhibana aan loo geysanin sharaf iyo qiimana ay bulshada dhexeeda ku joogaan taasaa u dhowaan badan buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala midda kaleeto yani waxa way aan isweydiinay shay si kastoo uu qaalisan yahay si kastoo uu qaalisan yahay shaygu haddii bannaankaa la dhigo oo ruux walba isha uu ka buuxsado uu qiimo beelaya walaa shaka fi dalik laakiin shay aan qiimaba lahayn oo waxyaalaha jira ugu qiimo daran haddii lagaa qariyo binu aadamka oo dhan oo u kala dhumanayaad arka oo nin walba hallay tusan oo u kala gabanhaya macna dabeecadda bini aadamkaasaasaba dabeecada bini aadamka shayga haddii laga qariyo qaali buu u noqdaa haddiise shaygu si kasta qaali u yaho bannaanka loo dhigo qiimo dhac baa ku dhacay gabadha marka jidhkeedii iyo wanaaggii rabbi siiye subxaana wa tacaala hadday bannaanka geyso meeshaa ay dhigto hadde waxa weeyaan nin walbaa indhaha ka buuxsan nin walbaa arki qiimo beel baa ku dhacaya sida haddaba haysata haweenka isqaawiya iyo khaasatan kuwa gaalada iyo in badan oo muslimiinta haweenkooda ka mida oo dhaqan ahaan ku raacday qiimo beel baa ku dhacaya wax qiimo oo yeelanayo ma uu jiro xataa waxaa baaba'aya dareenkii shahwo ee ka dhaxeeyey raggiyo haweenka ayaa daciifaya macna araggaa faraha badan saa daraaddeed xikmad weyn baa ku jirto rabbi subxaana wa tacaala qiimayn uu gabdhaha qiimaynayo iyo qaalinimo agtiisa ay qaali ka yihiin iyo dhowrsoonaan iyo wanaag uu la jecel yahay iyo akhlaaq wanaagsanoo uu la doonayo iyo rabbi ugu jideeyey subxaana wa tacaala oo sharciga macnaa waxa weeye uu arrintaa iyada u sameeyey mar hadduu arrinku sidaa yahay marka haweenay kasta oo muslimad ah oo ilaahay iyo maalinta aakhare rumaysan waxaa waajib ku ah inay allah iyo rasuulkiisa ka amar qaadato salawatullahi wasalaamu calayh haddii ilaahay uu amar bixiyo rasuulkiisuna amar bixiyo salawatullahi wasalaamu calayh gabadh muslimada ah iyo nin muslim ah khiyaar ma ay laha wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim nin mu'min ah iyo gabadh mu'minad ah midina ma ay laha haddii ilaahay iyo rasuulkiisu uu amar bixiyo in ay say doonaan ka yeelaan saan doonna kama yeeli karno addoommaan nahay soo ma addoommaan ilaahay u nahay alla addoommaha aynu u nahay hadduu amar bixiyo amarkiisa inaynu qaadanaan addoommo ku nahay amarkiisa haddaynu diidno shaydaan baynu addoommo u noqon addoommana kama bixi karayno saas way macana weligaa haddaad si kasta isu waasho ood si kasta u kibirtood isla weynaato oo si kasta u amar diiddo ama shaydaan baad addoon u tahay ama allihii ku abuurtay baad addoon u tahay laakiin addoonnimo kamaba bixi karnaba yacni daa'irada addoonnimada kamaba bixi karaynaba sidaa daraaddeed ayaa waxaa waajib ah in gabdhaha muslimaadka ah iyo ruux kastoo muslima uu ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulka sal alla alay wasalam inuu tixgeliyo oo uu raaco maslaxana aan meeshaa ka argno maslaxadu waa inay halkaas ay inooga muuqato ee aynan inooga muuqanin dhaqamo kaleeto iyo aragtiyo kale oo bulshooyin kale ay ku dhaqmaan waxaan ogsoonnahay xijaabka ahmiyadda uu leeyahay iyo qiimaha uu bulshada islaamka u leeyahay gaaladu culayska ay saarayaan iyo weerarka ay ku hayaan iyo ololaha ay ugu jiraan inta gaalada iyo inta gaala raaca inay haweenku isqaawiyaan yaad ka garan kartaa shayga qiimaha uu u leeyahay muslimiinta iyo bulshada islaamka gaalo waagay caalamulislaami qabsanaysay oo arrintan la yidhahda qasulfikriga duulaanka maskaxda iyo caqligu markuu inugu bilowday oo layna qabsanayay arrimaha ugu horre albaabada ugu waaweyn ee islaamka laga soo galay bulshooyinka islaamka lagu dumiyey ee lagu qabsaday kow waxaa ka ahaa haweenkii ayaa waxaa lagu yidhi guryahaad ku jirtaan sooma ah haa hadda waad addoommaad tihiin maxaad ka sheegaysaan rag baad addoommo u tihiin waa laydin xidhay maxaabiis baaba tihiinba lahaystayaal baa tihiin maxaa guryaha idin dhigay kaalaya soo baxo oo nolosha ka qayb qaata
oo kaalaya macnaha waxa weeyaan matala macnaha siyaasadii matala oo kaalaya xafiisyada fadhiista oo kaalaya dawladda hogaamiya oo bulshada kaalaya dawrkiina iyo kaalintiina ka qaata sidaasaa lagu yidhi gabdhihii muslimaadka marka iyagoon miisaamin ficlanna ay jirtay inay bulshooyinka islaamku qaar badan oo ka mida gabdhaha dulmin jireen oo xuquuqdooda sharcigu u dhigay ayna siin jireen ayaa macnaha waxa weeyaan gabdhihii waxaa dhacday dhawaaqii soo yeedhay inay qaateen oy raaceen masar baa ugu horraysay magaalada macnaha qaahire kala badhkeeda ayaa gabdhihii muslimaadka ahaa intay mudaaharaad sameeyeen arrin laga soo shaqeeyey baa waagii ingiriisku haystay bay ahayd inta laga soo shaqeeyo aad looga soo shaqeeyey yaa gabdhihii intay mudaaharaad sameeyeen oo magaalada dhexdeeda ku mudaaharadeen iyo xijaabkii magaalada kala badhkeeda ku gubeen maryihii intay siibteen iyo magaalada kala badhkeeda dab ku daareen macna ujeedday lahayd waxa hay-aad shaqaynaya ee laleeyahay waa hay-aadka haweenka waxa kutub yaryar soo baxaya ama joornaalada lagu qorayo ee laleeyahay xoraynta gabadha muslimadda ah kulligeed danta ay leeyihiin waxa weeyaan gabadhaas muslimadda qiimaha leh in qiimaha laga dibo gurigeeda in laga saaro haddii guriga laga saarana waa seef loo adeegsanayo in bulshada islaamka lagu dumiyo markay hadlayeen waxay yidhaahdeen yacni koob khamro ah waa madaxda reer galbeedka koob khamro ah iyo gabadh muslimad ah inaan gacanta oo inoo soo taagto helno ayaa bulshada islaamka iyo ummadda muxamed ka dumin badan madaafiic iyo sawaariikh gantaallo inaan u isticmaalno inaan gantaallo u isticmaalnoon ciidamada waaweyn ku bixinno waxaa ka degdeg badan oo ka sahlan oo natiijadu uga dhowdahay in aan haween qaaqaawan ku dhex sii dayno haween qaawan haddii lagu dhisayo gurigii laga saaro bulshadaasi waxaa aad u fudud inay duntoy burburto khaasatan hadday bulsho islaamiya tahay macna marka shaygu qiimaha uu leeyahay walaalayaal inaan u garanno oo aynu saa u fahanno waa laga maarmaan sidii aan u ilaalin lahaynna aad inaan ugu dadaalno waxaa nasiib xumo ah gaala iyada garanay oo hadday inala dagaalanto oo haweenkeennii ay dacayad ku furto oo ay guryihii ka saarto oo raggii ay dacayayso oo sharcigeennin iyo caqiidadeenna ay dacaydayso ay ku jeesjeesaanoo wax ka sheegaan ayada yacni waa waxaan ka filaynayba gaal muxuu dhib ii gaadhsiiyey iyadu su-aal haddaan isweydiinayna maba ahaba laakiin waxaa aad loo qariibsadaa oo wax lala yaaba ah dad muslimiina oo islaamnimo sheeganaya bal qaarkood ay ducaad sheeganayaan in ay hujuumaan oo weerar ku qaadaan xijaabka gabadha muslimadda oy dacaydeeyaan oo xataa gaaladu si aysan u dacaydin ay u dacaydeeyaan waa mas'ale macnaha wax way aan la garowsan karin wey waa masale aad looga sariigta wey laga yeeqsado wey runtii mana garanayo runtii wax ku bixin kara ruuxa muslimka ah wax ilaahay sharcigiisa ku sugnaado kitaabka ku sugnaaday ama xadiista nabiga ku sugnaaday salawatullahi wasalaamu calayh inuu wax ka sheego oo dacaydeeyo wax ku bixin karaay maba jiri karto allahuma inuu iimaan la-aan yahay mooyaane inuusan iimaan lahayn mooyaane istihzaa iyo jees loo geysto sharciga rabbi subxana wa tacala iyo axkaamtiisa waa gaalnimo wey siduu rabbigeen inoo sheegay subxana wa tacala marka arrintaas ha lagu baraarugsanaado dad fara badan oo diinta inoogu soo gaban baana jireen oo gaalo markay gaalo tahay inteenna badan waa ku baraarugsannahay makriga iyo dhagarta iyo shirqoolka inoo maleegayaan laakiin marar badan baa qaar wadaadda'a laynoo soo diri qaar wadaadda'a oo gadh dheerdheer oo macnaha waxa weeye diin akhrinaya oo qaala allahu wa qaala rasuuluhu ku haya yaa marar fara badan laynoo soo diri oo sharcigii si xun inooga turjumi oo marar badan weerari wixii aan dhaqan iyo diin u lahayn wax ka sheegayo ku jeesjeesaya oo dad fara badan kaalinta weydaarinoo haadaan uga tillaabsanaya xumaan iyo meel xunna ku wada macna marka taa iyada inaan ku baraarugno oo laa yuldaqu lmuslimu fii xujrin maratayn ruuxa laba goor lagama qaniineen yaan layna qaniinin oo aan aqoonsanno diinteenna iyo sharcigeenna aan garanno intaa markaan garanno kadib xijaabku wuxuu leeyahay shay walba oo sharciga ka mid iyo axkaamtiisa shuruud buu leeyahay yani shuruudda waxaa la yidhahdaa waxyaalo lagaga maarmaan ah oo haddii la helana shaygani u waafaqsan yahay sidii sharcigu u sheegay haddii la waayana shaygani uusan waafaqsanayn sidii sharcigu u sheegay arrimo dhowraan marka sheegi doonnaa haddii alla yidhaahdo oo gabadha muslimadda a labiskeeda loogama maarmaan ah hadday doonayso inay waafajiso diinta ilaahi subxana wa tacaala sharciga rabbi subxaana wa tacaala rabbigeed inay ku raalligeliso hadday doonayso shuruud baa laga maarmaan ah shardiga koobaad waxa weeye labiska iyo marada gabadha muslimaddii waa inuu jidhkao dhan wada gaadhaya waa inuu jidhkao dhan wada daboolayo wey
daraf ilaa dacal madax ilaa minjo waa inay maradu wada gaadhayso haddayna saas ahayn oo maradu ay jidhkii qayb ka mida aynan gaadhaynin maradaasi ma aha labiskii gabadha muslimadda ah waa labis gaalo iyo in gaalo raaca ka soo jeeda